Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan asxaabteyda qaaliga ku soo dhawaada YouTube-keen Kayf Bashiir. Waa Kayf Bashiir. Asxaabtayda cusubtiin subscribe ii saara, like ii saara, asxaabtiin kala sii wadaaga. Waa mahadsantiin, waxaan rajaynayaa caafimaad qabtaan anna sidoo kale. Maanta iyo video kale cusub, maanta casriye yara wada, waxaan rajaynayaa ka heli doontiin. Meesha waxaan kusoo qaata baaquli, waxaan rabaa inaan qasto rooti, marka qiyaasta familkaaga ku xirantaa markasta. Aniga qiyaasteeda meeshan kusoo waxaystay, waxaa kusoo darsanayaa sonkor, sidoo kale leebito oo kusoo daraa inuu dhaqsi ii faxaan rabaa, leebitada xooga uruuniyay, iyo waxaa kusoo darsada caano booro. Sonkorta waxaa isticmaala 2 qaando, ma rabo inay zaid u badiyo. Caano booraha laakiin weelkaas soo buuxsada adi xooga uruunaysta iyo waxa yar cusbo kusoo daray. Ukun wax la ma ku darin maanta, kadib intaana isku qasaaya si fiican oo qasaaya. burka markaa qasaysid waxa fiican waa inaa yara jilcisid hadhow burka la dib ugu darsan kartaa caadi waaye. Inuu adag yaa ma fiicno markaa xashaysid. Hadda xoogaa waa jilciye, kadib biyo yar oo ku sii daraa xoogaa inaa jilciyaar waa si fiican u xasho. Ani markasta burka saliida gadaal ugu daraa asaa si fiican iskugu xashaa, kadib saliida ku daraa. Hadda waa xashaya si fiican oo xashanaya. Marka hadda saliid ku daraa, marka xoogaa is dhex galiyo burka oo si fiican u qaso saliida ku darsanaa. Marka saliida intaan hadda ku qasaya si fiican oo xashaya. Bur markasta as xashitaan lee waaye, marka si fiican u xashitid wax khatar oo kaaga soo baxaa. Hadda waa kan si fiican oo soo qastay, diyaar waaye. meelaa dhiganaya waxaa rabaa inuu ii soo kaco 30 daqiiqo camal. meel iska dhigaya inuu ii soo kaco. maanta shaaxa sameynaya, shaax macaankiis laga yaabay. caanahana isticmaalaya, caano maraaci lahaa. shaaxa wax biyo lahaa ma ku karinay, caanahaas la rabaa inaan ku kariyo. madax haduu ku xanuunayo fayo ku noqonaa dhagta jibiyaa lahaa shaaxan. meesha waxa ku haystaa dhirirkii ku darsan lahaa, carafta ku darsan lahaa shaaxa. waxa ku haystaa qorfe, filfish ma badna u jeedin, dhagayare, sanjabiil qoyan iyo heel. intaas raba isku soo tumaya, si fiican iskugu soo tumaya. caanihi way soo kareen, mujidu way buriyeen laakiin waa ka damiye, waa u yara gaabiye. bakeeriga zaid ma u buuxo sonkorta, waa ku darsanaya. sidoo kale hadda heelkii caraftii soo tuntay oo ku shubtay. kadib ujeedii mahano inuu xoogaa ii soo karaa rabaa. heelka markuu 2 jeer camal soo karo caleenta ku shubaya. caleenta markaa u shubtidna dhulka ma dajinaysid, waxaa rabaa inuu isku karkarto. caleenta qaandadaas isticmaalaya. dabka waa ina ag taagnaataa, inaa yura gaabisid u dheeraysid. waa markuu soo soo karo waa gaabine. daboolka inaa saarto ka tagti mal rabo. hadda ujeedii mahano caleenta u soo karkarooso. shaaxan khatar waayo ku dhaamada, haduu ku xanuunaa xitaa fay ku noqonaa. waa kaasaa markaa gaabiyo shaaxu isku laabmaya inuu si fiican u karkaraa rabaa. caleenta si fiican u dhaxgasho caanaha iyo caleenta isku karkaraan. hadda jeedin si fiican uu ku soo karkare, diyaar waaye. marka had tarmuuska ku shubanaya, caano miir isticmaalaya because heel iyo wixii dhan ku jira marabo. hadda waa kan tarmuuskiya ku shubanaya, waa miirnaya tarmuuskayga ku shubanaya. diyaar u yahay casriyaha. shaaxan casriyan hadda u samaystid bas lagama sheekeyn karo macaankiisa. inaad tijaabisiin waa rajaynaa asxaabteyda. hadda waa kan tarmuuska ku soo shubtay, diyaar waaye. meela dhiganaya. had diyaar u yahay, waa daboolna meela dhigaa. hadda burkii oo ii soo kaca meesha rabaa inaan ku fidsado. bahasheedii bur ku fidsanaa soo qaatay. bur yara iskaga bitiyay, kadib burkii hadda fidinaya. wax yar burkii markaa kuuska meesha dhigo, haddana wax yar ku bitinaya, kadib waa fidinaya. si qafiif zaid ma la rabo inaa u fidisid, si caadi la rabaa. rooti qalfaha sameyn jiray oo nashqad kala waaye, qumbaha ka dhigaya. qumbahana marka la soo geliye maanta isha condensed milk ma isticmaalaya, mise caanaha macaan saa u taqaaniin. caanaha macaan dhan ma isticmaalaya, waxa uga maarmi kartid idin tusaya maanta. hadda waa kana sidaana u soo fidiyay midkaan. kadib waxaa marinaya saliida yara marinaya.
Bedelkiisa subag hadaa haysatid waa ka bedelan kartaa. Meeshan waxaan kusoo qaatay sonkor. Sidoo kale meeshan waxaa ku haystaa qumbaha oo bacaha ku jira shajalan. Waa isku soo daraya kadib intaana isku walaaqaya. Hadda meeshan waxaan isku soo dhex daray sonkorti iyo qumbihii. Kadib burkii aan saliida mariye aan si fiican ugu saliida meelaha dhan ka gaargaarsiinaya. Waa ku shubaya marka qumbihii iyo sonkortii aan isku soo dhex daray aan ku shubaya. Sidaas aan ugu shubaya ujeedin geesaha dhan aan kala gaarsiinaya. Markii rootigan qumbaha lagu sii sameeyo caraftiisa lagama sheekeyn karo. Hadda waa kan waa ku wada shubay kadib waa la laabaya. Hadda marka waa duuduubaya si tartiib ah rabaa inaan u duuduubo. Sidaas aan u duuduubaya. Kadib waxaa soo qaadanaya dun. Kadib dunaa soo qaadanaya afkaas hore aan iska jaraya. Shape-ka wuu iga qaldaya afkaas yare marka u horeeyo waa iska jaraya midka u dambeeso. Kadib duntaana saas dhag ugu siinaysaa. Saas ayuu ku jarmatabo fudeed. Shape-kan way kuu qurux badnaysiinaysaa. Shape-kan way kuu qurux badnaysiinaysaa wayna kuu jaraysaa si qurux badan u jaray. Bedelkana mindi waa isticmaali kartaa caadi waaye. Kadib sidaan u soo jaranaya. Meesha waxa ay yaalo saxankii aan foornada ku gali lahaa saliida soo marsaday. Marka midkii aan jarabo ayada hor ka sii saaraya. Hadda qaybta sidaas aan u soo saaray haddana qayb kala fidinaya sidoo kale u fidinaya bura meesha iska u firfirdhiye kuus kala soo saartay si fiican u fidinaya marka meesha aan saliidka isticmaalayo butter haduu ku yaalo masuug haduu ku yaalo isticmaali kartaa aan saliid caadi ah isticmaalayo hadda waa kan waa fidiye kadib saliideedii hadda sidaas ugu soo waxaynaya saliida had markaas aan ugu soo waxayo waa marmarinaya dhinacyada dhan waa ka marnaya saliida waxay ka caawinaya qumbahaaga iyo sonkortaas ku walaaqday inaa marka ku shubtid dhag ku dhageysaa saliida midaas ka caawinaya oo lama marinayo geesaha dhan ka gaargaarsiinay una fiicnay qumbaha hadhow ku milmaya zaid kadib caraftiisa lagama sheekeyn karo marka waa u badina ina u badi sida fiican xoogaa sidana u soo duuduubaya kanne hadda waa kan waa soo duuduubay kadib afafka ka jaraya afka ugu horeyso meesha ugu horeyso yara jaranaya sida idin sheegay qaab dareen ka dhigay marka inaad jirtida fiican dunta soo qaadanayna sidana ku jarayna ayada dhan oo ku soo dhameynayna dunta soo qaaday dhac hoos gelinaysa kadib sidaas isku dhaafinay saas ku jarmay hadda xoogaa markuu marka jarjaray wax yar suugay intuu soo kacayo marka jarjartid ma fiicno hore ina foornada ka geliso waxa fiican 5 daqiiqo camal inuu meel ku yaalo soo kaco marka aniga xoogaa hadu meel yaalo markuu soo kacay laba jeer inay rooti marka sameynaysid rootiga marka waxaynaysid waxa fiican laba jeer inaa qamiirisid markii koob inta qastida meel dhigaysid iyo intaada foornada gelin ka hor kadib rootiga waxa ka soo baxayo rooti waxa kaaga soo baxayo oo jileec ah oo zaid u jilicsan marka saas fiican
ani markaa soo jarjaray aan soo waxaystay ka wadaa saxan ku soo shubtay meelaa dhigay wuu ii soo kacay. Kadib hadda waxaa kor ku darsanayaa caanaha waxaa isticmaalay heavy cream caanaha la dhaho ama whipping creamka caadiga oo doolshooyinka lagu daro waa isticmaali kartaa ayadoo ku shubanaya. Haddaad intaas haysanna waxaa isticmaalaya caano booro intaa qasta waa ku shubanaysaa kadib foornadaada gelinaya. Hadda intaas isku waxeeye foornada geliye intay foornada iigu sii jirto digsiga had dabka soo saartay marka intaas oo intuu isoo bislaanayo digsiga dabka soo saartay sonkorta intaana isticmaalaya maraba sonkor zaid badan inaan isticmaalo dabka u gaabinaya sonkorta marka dhalaalinaysa caramel camal rabaa inaan sameeyo dabka u gaabinaysa tartiib asaa ku dhalaalayo sonkorta inay ii dhalaashaa rabaa marka dabka iska gaabi saasna u walaaq tartiib ayada u dhalaalaysabo. Wajidi maano tartiib soo dhalaalay dabka meesha u dambeeyaa geena madii zaid oo dabka u dheeraysid sonkorto way ka gubinay ma fiicna marka dabka meesha u dambeeyay u geey tartiib iska walaaq qaandadaada leesas ugu dheh ayada tartiib isku dhalaalinayso. Hadda waa kan sidaa raway ii noqotay ujeedii mahano malab camal ay noqotay guduud qurxan tartiiba u dhalaaliyay caanaha ku daray waxa waaye caano iyo waxa isku soo daray waraango hal qaando waraanga iyo galaas caana waaye marka adoo gacan ku walaaqaysid gacanta kale ugu shubay tartiiba ugu shubay ani caanaha xoogaa waa u badinaya waxa rabaa caramel ka sonkorta u badan mahano laakiin kan waxa rabaa caanaha inaan ku yar badiyo laakiin sonkorta mar walba soo dhadhamaysaa. Badalka caano macaanka u isticmaal lahayd caano macaanka inta isticmaal lahayd badalkeeda alaabta inta samaystid ku tijaabi zaid oo macaan badan tahay. Caano macaanka condensed milk waa ka maarmaysiin mujidin sonkorta xal waxa loo camal isku soo qabsatay laakiin ay saana ugu sii walaaqaya tartiib ayada milmeysabo way ku dhaxmilmay intaas dhan ma ka bixinaysid tartiib le ugu walaaq dabkana ku gaabsanaado. caanaha waa ku soo dardaraya tartiib ugu soo daraa waxaan rabaa inaan intaan dhalaaliyo caanahana tartiib ugu soo daro. Galaas caana ku wada shubi rabaa marka ku wada shubaa tartiib waaye laakiin hal galaas oo caana isticmaalay iyo galaas caana iyo waxa isku soo qasay hal qaando waraanga waraangada waxa waa mid xalwada lagu waxeeyo supermarket kasta waa laga helaa waraanga rabaa dadahid waa ka helaysaa. Marka intaana isku walaaqaya tartiib dabka u gaabi sonkortaas dhan way soo milmay waa arki doonaa way ku dhax milmaysaa. Hadda waa tan ayadoo ii soo milmantay mujidiino sida ugu soo dhalaaliyay kuus iyo waxaas dhan malahan hadda waa idin sheegay caramelka sonkorta waxa zaid ugu badan caanaha ku yar badiyay sidoo waxoogaa macaanka u yaraado caanaha u rooneeyay sonkorta yar kalarka ujeedin cadaan ku jiro caanaha u badan macaan kaliya waaye. Hadda waa kan rootiga sidan quruxda badan oo iigu soo baxay kadib hadda kor waxa ka marinayaa caramelkii caanihi ku dar ujeedii mahano sidaas oo geesaha dhan ugu xasmay dhaxda iyo hoos markii laga fiiriyo jileec caanaha markii lagu dhax radiyo oo rootiga foornada lagu geliyo lagama sheekeyn karo macaan kaliya waaye. waa idin sheegay whipping cream iyo waxaas daadahaysan bedelkiisa caano booraha qasaysa waa ku shubay kadib foornada gelinay. maanta waxa iga maqan bacda aluminiumka daadahaysan caadi waaye kor le hoos si fiican ugu dheeraynaysa markay hoos si fiican u guduudato kor wax yar u daaraysa. aluminiumka waxa ka caawinay inuu si fiican iskugu huuro rootiga uumigiisa dhan asoo dhax galaya marka saasi ka caawinay. marka meesha hadda waxa ku soo shubtay marka caramelkii sonkortii wixii soo sameeyay marka kor u shubay waxa hadda ku soo waxay whipping cream wax yar makiinada u daaray zaid ma u waxeenin zaid ma u qasima adkeenin sidii ina dool sokorka marna ka dhigin waa soo yar jilciye waxa rabaa inuu
asina hoosna uu kasii qoyan yahay rootigii korna whipping creamkii oo jilicsan aan kasoo mariyay. waa ujeediin waan kusoo wada gedinayaa rootiga macaankiisa ma laga sheekeyn karo 10kiiba 10 oo u qalmaa soo tijaabiya caana macaan dhab ma u baahnid waxaan kaloo idin sheegi rabay whipping creamka markaa qasaayo wax sonkor la dhahay dhan ma taabsiinin because caramel aa rabay caramelka sameynaya ujeediimahana sonkortaas aa ka badanbo wax sonkor dhahay dhan ku qasisid asiga soo garaacay midda budada haday haysatid midka budada haday haysatid mise midka dareeraha haday haysatid labadaba sonkor dhan ku qasaysid kaligooda qasay intaana ka badan waxa yar oo caramel dhaxad ugu soo shubay hada rootiga jilaacis lagama sheekeyn karo ujeediimahana sidaana u soo waxayna marka waa soo diyaarnaa idin tusaaya macaankiis lagama sheekeyn karo waxaan rajeynaa inaad tijaabisiin. hadda caramelkii qayb yar aa reebtay qaybta yar aa reebtay baca ku soo shubay kadib sidaana markaa waxeeyo marka qofku u diyaarsid aad siinaysid wax yar korka saan ugu shushubaysaa macaankiisana lagama sheekeyn karo jileeca ka daran sidaas fargeetada markaa ku dhahda saa kuu go'aayo inaad tijaabisiin aan rajeynaa asxaabta qaaliga waa mahadsantihiin. فيديو حاجة انت كل مدونة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.